dee horta faraska waa la saaro raggii saarayna way garab taagnaayeen maxaa uga garab dhaqaaqi waayeen guddoomiyihiina uu ku xajinayo sidaasuu lahaa markaa dee maxuu ugu soconna waayey isagoo keligiina in loo arki waayey waxa weeye soo tasawirkii noo muuqdo dadkii saarayna way garab jaagan yihiin si una uga dhicin ninkana uu ku hayaa markaa dee waxa weeye taasay noo caddayn horta xisbiyada mucaaradku isku wada geeyo iyaga ayaa inta badan guud ahaan dadkana si shakhsiya u weerara qarannimadana dhaawaca iyaga ayaad og tahay fi taariikh somalilan inay yihiin nimankii u horeeyey ee yidhaahda qaran somalilan ma jiro la soo fadhiista iyaga oo weliba cabdiraxmaan uu warqad ka akhriyay qarannimada somalilan ma jirto haddana maalintii dhaweyta uu guddoomiyihii xisbiga wadani uu fagaare isagoo ka hadlaya go-aan ku dhawaaqay inayna odhanba qaran ma jira ee shacbigu masabiday oo si qaldan hadalkoogii loo turjumay horta iyagaa u baahan hogaamin iyo isasixid inay isasaxaan miyaad aragteen weli qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyaga oo difaacaya miyaad aragteen inta go-aan ee waxa weeye ninkii soomaaliya iska eriday ee farmaajo uu qarannimadan somalilan horumarkeega ku hayay kuwa maanta jooga dhaawacyada ay u geysanayaan iyo kelmadaha ay ka yidhaahdeen iyagoo ka hadlaya miyaad aragteen wax walba waxa iyaga kala weyn cadiyaha ama ku cunay ama ku ciideeyay kursi haddaanu weyne qaran ma jiro markaa iyaga waxaan leenahay dhowaan shacbiga u jawaabi doona wixii ay shaqaysteen doorashada ururada ayaana lagu kala bixi doona waxaad aragtay rag ka mid ah mucaaradka somalilan oo iyaguna hogaamiyihii qaranka hogaamintiisii iyagoo dabaqaya ay farda soo fuuleen laakiin kumay soconin sida cabdiraxmaan oo kale shalay toole isaga oo uu taagan yahay isla mar ahaantaasina guddoomiyihiisii uu ku xajinayo ayaa dee horta lasoo bandhigay ninka kalena isaguna kaahna uu saaka isagoo faras fuushan laakiinse aanu soconin markaa waxay noola muuqataa dee waxaad qirteen inaad ku dayanaysiin hogaamintiisa tubta toosan ee dalkani mahadiye madaxweyne biixi dee siyaasadda xukuumadda iyo xisbiga kulmiyana waa inagu soo dhaweynaynaa maadaama aad guud ahaan qaranka u qirteen hogaamintii madaxweyne biixi inaad idinkuna dabaqaysaan oo sunnihii